halkani waa barta YouTube-ka ee Wararka TV. Qodobada caawa ku daawan doontaan Wararka TV-na waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee shirka Garoobe iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo wali ismarila. Faysal Cali Waraabe oo weeraray madaxweyne Farmaajo. Midowga Yurub oo qaaday tallaabo dawladda Kenya ku qasbaya in ciidamadeeda ay kala baxdo gudaha dalka Soomaaliya. Axmed Madoobe oo Jubbaland ka dhigaya shirkad uu leeyahay iyo tallaabo yaab leh uu qaaday Axmed Madoobe. dagaal garoonka Kismaayo ku dhex maray ciidamada Jubbaland iyo kuwa musharax xaruntii ugu weyneed Al-Shabaab oo xalay la duqeeyay. wararka caalamka aad ku daawan doontaan Wararka TV-na waxaa kamid ah wariye BBC-da ka tirsan oo shaqada laga ceyriyay iyo shirkad caan ah oo ka jawaabtay eedeymo kaga yimid shaqaale u dhashay wadanka Ethiopia. intaas aad daawateen waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada ugu muhiimsan ee Wararka TV. iminkana ku soo dhawaada iyaga oo faahfaahsan. waa habeenimo ay Jimco soo galayso Khamiis nasiib bixayso taariikhdu ay ku beegan tahay 9 bisha shanaad ee 2019. shirka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ayaa marxalada xasaasi ah maraya iyadoo maalintii shanaad uu galay shirka oo aan wali u kala kicin madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada. sida ay wararku sheegayaan shirkii ugu dambeeyay ee madaxda dhexmaray ayaa xalay dhacay waxaana uu ahaa kii ugu waqtiga dheeraa marka loo eego kulamadii hore. wararka ayaa sheegaya in shirka la isla gaaray ilaa 3 habeenimo xilligii ay ku dhowey salaada subax ayaana la kala tagay iyadoo aan wali la ogeyn waxyaabaha la isla gaaray balse ay jiraan caqabado laga gudbi laayahay. ilo kala duwan ayaa inoo xaqiijiyay in labadii maalmood ee la soo dhaafay uu shirku ahaa kii ugu xasaasisanaa uguna adkaa waxaana hareeyay arrinta Galmudug iyo sida xal looga gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya madaxdooda. waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka loo maraayo xal u helidda khilaafka kaas oo la isku khilaafay. madaxweynaha Galmudug ayaa ku adkeysanaya in muddo xileed maamulkiisa uu ku soo bilaabanayo heshiiskii lagu mideeyay ahlu sunna iyo Galmudug. sidaas darteeda qodobkaas aan wali la baalmari karin iyo go'aamadii lagu gaaray Dhuusamareeb. sidoo kale madaxda dawladda federaalka ayaa u soo jeediyay madaxweyne Xaaf inuu sameeyo shir dib u heshiisiin ah isla markaasina Dhuusamareeb shir looga furo baarlamaanka fadhiya Cadaado iyo gudoomiye Cali Gacal Caseer. madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada ayaa isfaham hordhaca ka gaaray arrinta sharciga doorashada ee toddobaad ka hor ansixiyeen golaha wasiirada. waxaa la isku afgartay in sharcigaasi laga wada tashto. waxaa kaloo wali la isku haayaa sharciga batroolka ee horyaalo baarlamaanka Soomaaliya waxaana qodobkaas maamul goboleedyadu qudhowdu ay yihiin kuwa ku kala qaybsan. shirka ka socda Garoobe ayaa noqday kii ugu adkaatan markii uu bilowday shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada. waxaana shirkaas uu kaga duwan yahay shirarkii hore in madaxda aanay cidna ku helin wada hadaladuna ay yihiin kuwa albaabada u xiran taas oo keentay in wax badan aan laga ogaanin arrinta Garoobe. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo wareysi siiyay mid kamid ah TV-yada Soomaalida ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in wax kasta uu u wado hab qabyaaladaysan. gudoomiye Faysal ayaa sheegay in arrin kasta uu ka eego madaxweyne Farmaajo dhanka qabyaaladda isagoona ka dhawaajiyay intaas ay keentay inuu ka fikiro shirkadaha Daalo iyo sidoo kale Jubba inay leeyihiin qabiilo gaar ah. Faysal Cali Waraabe ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo in shirkadaha diyaaradaha ee Jubba iyo Daalo uu ka wareejiyo duulimaadyada xujaayada Soomaalida isagoona u wareejinayo shirkado kale oo ay leeyihiin dad ay isku heeb yihiin sida la sheegay. marka Farmaajo iyo khayr madaxda ka yihiin haddii aan dhulkaas Soomaaliya aan laga qaban waxaan ka yaabaa in dhulkaas marka hore nabad aan ka jirin ciidamada shisheeye joogaan khayraadkooda la guranayo inay fawda ay geliyo marka yaabaya dagaal sokeeyo ay geliya lan waxa weeye muraadu sita Farmaajo waa muraad qabiyaaladeed wax kasta qabiil uu ku eegay shirkadaha xajka qaadi jiray labada shirkadood baahayeen Daalo iyo waxaayeen Jubba waa shirkada Soomaaliyeed wuxuu soo arkay shirkada qabiil marka wuxuu damacsan yahay inuu wixii qabiilka u bedelo shirkada yar oo reer ahaan u doonayo lacag ugu sameeyo oo jirin inuu abuuro. midowga Yurub ayaa laga bilaabo bisha Luulyo ee sanadkan waxa uu aad u dhimayaa lacagaha magdhow ahaan u siinayo dawladda Kenya oo ay ciidamo ka joogaan dalka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM.
sida uu qoray wargeyska Business Daily ee ka soo baxa dalka Kenya. warbaahinta Kenya ayaa sheegaysa in wasaaradda maaliyadda Kenya ay dhintay miisaaniyadda ciidamada dawladda, taas oo laga fahmi karo in Kenya ay bilaabayso inay ciidamadeedii kala baxdo Soomaaliya. Kenya sida uu sheegay wargeyskan waxa ay filayaan in midowga Afrika ay ka hesho ku dhawaad 49.5 milyan oo dollar, lacagtaas oo u dhiganta mid 41.17 ka yar lacagta magdhow ahaan Kenya loo siin jiray sanadkan, taas oo gaaraysay 84.12 milyan oo dollar. sidoo kale waxaa la filayaa in laga bilaabo bisha Luulyo ee sanadka 2020 midowga Yurub lacagahaas gaarsiin doono 34.65 milyan oo dollar, iyadoo sanadka xiga la gaarsiin doono 29.69 milyan. dawladda Kenya ayaa sanadkan midowga Yurub ka doonaysa lacago badan oo magdhow ah marka la eego qarashaadkii loo qoondeeyay 4 sano ee la soo dhaafay. wasaaradda maaliyadda Kenya ayaa 7 bilood ee la soo dhaafay midowga Yurub ka heshay lacag magdhow oo ka dhigan 44.2 qarashaadka dawladda Kenya sanadka u qoondeysay ciidamadeedii ka jooga gudaha dalka Soomaaliya. Kenya waxaa gudaha Soomaaliya ka jooga 4,000 oo askari, kuwaas oo 2011 ogolaansho la'aan soo galay Soomaaliya, balse 2012 ku biiray howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ka socda. maamulka Jubbaland uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la yimid xeelad cusub oo aan suuragal ahayn inay dhacdo, taas oo ku saabsan doorashada xildhibaanada maamulkaas oo la filayo in dhawaan la soo xulo si ay u dhacdo doorasho madaxweynenimo. magaalada Kismaayo iyo deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Jubbaland wali waxaa ka taagan khilaaf ku saabsan qaabka loo soo xuli doono xildhibaanada cusub ee Jubbaland ee dhawaan la dooran doono. guddiga doorashada maamulkaas oo ah mid uu magacaabay Axmed Madoobe uuna ugu talagalay inay u sameeyaan sida uu rabo, ayaa soo jeediyay arrin si weyn ay uga hor imaadeen odayaasha dhaqanka soo xulidda xildhibaanada. gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre oo keensaday Axmed Madoobe ayaa dhawaan sheegay in guddiga doorashada uu leeyahay go'aanka ugu dambeeya ee qofka xildhibaanku noqonayo. Xamse ayaa sheegay in halkii boos ee xildhibaanba ay odayaasha beelaha ay guddiga u soo gudbin doonaan magacyada 3 qof, kadibna guddiga uu xulan doono mid ka mid ah 3daasi qofood. odayaasha dhaqanka ayaa sheegay kana hor yimid arrintaasi mid ay ku qeexayaan musuqmaasuq uu doonayo in lagu sameeyo qaabka doorashada loo soo xulayo ee Axmed Madoobe damacsan yahay. Axmed Madoobe ayaa Jubbaland ka dhigay shirkad uu isaga leeyahay ee uu rabo. inta la xaqiijiyay 4 askari ayaa ku dhaawacantay israsaaseen ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal, israsaaseenta ayaa timid kadib markii ciidamada ammaanka maamulka Jubbaland ay isku dayeen inay baaraan Cabdinaasir Seeraar oo ka mid ahaa musharaxiinta u tartamaysay xilka madaxtinimada maamulka Jubbaland. Seeraar oo horey ula soo shaqeeyay Axmed Madoobe ahaana afhayeenka Jubbaland ka hor inta aysan isku dhicin ayaa ahaa mid si fiican ula shaqeeyay Axmed Madoobe, waxaana uu ka hor yimid waxaana uu hadda ka mid yahay musharaxiinta. musharax Seeraar iyo ilaaladiisi ayaa ka biyo diiday baaritaan ay sameynayeen maamulka ilaalada garoonka, waxaana ay taasi sababtay inay israsaasayaan ciidamada ammaanka iyo kuwii ilaalinaya Cabdinaasir Seeraar. wararka ayaa qaar waxa ay sheegayaan in ciidamada dhaawacmay ay yihiin ciidanka ilaalada musharax Seeraar. weeraro cirka ayaa xalay lagu qaaday deegaano ka tirsan Jubbada Dhexe oo ay maamulaan Al-Shabaab, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan duqeymahaasi dhacay. sida wararku ay sheegayaan 2 weerar ayaa xalay ka kala dhacay magaalooyinka Jilib iyo Jamaame, waxaana la sheegay in lagu bartilmaameedsaday saraakiil shabaab ah. weerarka koowaad ayaa dhacay saqdii dhexe ee xalay, waxaana uu ka dhacay degmada Jilib, halkaas oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin Al-Shabaab. waxaana gantaalo lala dhacay goobo la sheegay inuu ku sugnaa sarkaal Mareykan oo si aad u doondoonayo, kaas oo horey madaxiisa malaayiin dollar loo duldhigay. saraakiisha ciidamada xoogga iyo kuwa Jubbaland ayaa soo sheegay in sarkaalka la bartilmaameedsaday uu wada shaqayn dhow la lahaa hogaamiyaha xilligan ee kooxda Al-Shabaab. weerarka labaad oo isna Jilib ka dhacay ayaa dhacay xilligii saxuurta, waxaana lagu bartilmaameedsaday xubno sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo u qaabilsanaa dejinta qorshaha, lamana oga khasaaraha ka dhashay weerarkaas. iminkana ku soo dhawaada qodobada caalamka ee barteena YouTube-ka wararka TV.
madaxda BBC-da ayaa shaqada ka eryay mid ka mid ah wariyaasheeda ugu caansan shirkadda oo lagu magacaabo Daniel Parker kadib markii bartiisii Twitter-ka uu ku qoray wax loogu yeeray hadal edeb darro ah oo ku saabsan canug yar oo ay dhaleen amiirada Harry iyo sidoo kale Meghan. qoraalkan oo hadda laga tiray barta Twitter-ka ayaa ku faafay baraha xiriirada bulshada waxaana uu muujinayay sawir lamaanaha oo gacanta ku haya daanyeer loo labisay waxaana uu raaciyay qoraal uu ku yiri canuga boqortooyada wuxuu ka soo baxay isbitaalka. Bakar oo tabin jiray barnaamijka 5 Live ayaa lagu eedeeyay in qaab cunsuriyada oo ula dhaqmay boqorada taasoo sababtay in BBC-da ay qaadatay go'aankii ugu dambeeyay oo ah inuusan mar kale tabin barnaamijka toddobaadlaha ee ka baxa BBC-da ee barnaamijka la yiraahdo 5 Live. wariyahan oo 62 sano jir ah ayaa raaligelin ka bixiyay ugu dambeyn dhacdadan wuxuuna sheegay inay ku noqotay arrintan mid lama filaan ah. dhanka kale shirkadda H&M ee dalka Sweden laga leeyahay ee dharka iyo sidoo kale alaabaha xaragada iibisa ayaa sheegtay inay ka go'an tahay in dhaqaale macquul ah ay siiso shaqaalaha Itoobiyaanka ah ee soo saara shirkaddaasi qalabkan uu sameeya. arrintan ayaa daba socota kadib markii soo baxday warbixin sheegaysa in shaqaalaha dharka tole ee Itoobiyaanka u shaqeeya shirkaddaas ay yihiin kuwa la siiyo adduunka mushaaraadka ugu yar. H&M ayaa ka mid ah shirkadaha iibiya alaabo lagu sameeyo dalka Itoobiya. shirkadaha kalena waxa ay ka mid yihiin Calvin Klein iyo Tommy Hilfiger. warbixintan oo ay sameysay cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda New York University Stern Center for Business and Human Rights ayaa lagu ogaaday in celcelis ahaan shaqaalaha Itoobiyaanka ee la siiyo bishii $26 taasoo keentay inay cadaadis ku noqoto nolol maalmeedkooda. waad ku maasan tahay daawashada barteena YouTube-ka ee wararka TV. fadlan subscribe saar channel-kan oo rukuma gambaleelka waxaad mar walba heli doontaa wararka siyaasadda gudaha iyo sidoo kale dibadda. mahadsanid dibadda.